markii boqortooyo awood leh ay u soo baxday inay tirtirto ummadan. Markii hal libaax uu istaagay duniduna ay filaysay in islaamku dhamaaday, waxaa jiray nin dhalinyaro ah oo go'aansaday in taariikhda la bedelo. sanadku wuxuu ahaa 1071 miilaadi. dunida islaamka waxay ku jirtay kala daadsanaan iyo daciifnimo. khilaafadii Cabbaasiyiinta magacay ahayd awood dhab ah ma lahayn. boqortooyada waxay soo diyaarisay ciidan aad u ballaaran, kumanaan askari oo hubeysan. ujeedkooduna ahaa inay jabiyaan awoodda muslimiinta ee bariga. waxay aaminsanaayeen in dagaalkan uu noqon doono mid degdeg ah, laakiin ma aysan ogeyn in nin la oran jiray Alp Arslan uu sugayay, micnihiisu yahay libaaxa geesiga ah. haddaba magacan ayaan isticmaali doonaa oo libaaxa geesiga ah. aan sii wadana muuqaalkeena. wuxuu watay ciidan ku dhow 20,000 askari, daalan, qaar dhaawac ah, qaar hub yari hayso, laakiin hal shay ayaa ka xoog badnaa tirada: iimaan. wuxuu yidhi ciidankiisii, qofkii raba inuu baxo ha baxo. maanta waxaan difaacaynaa diinteena, sharafkeena iyo jiritaankeena. maalinkii jimcaha ayuu baryay Ilaahay, wuxuu wejigiisii dhulka saaray isagoo ilmeynaya. kadib wuxuu fuulay faraskiisii oo yidhi, haddii aan jabno dib uma laabanayno, goobtani waxay noqon doontaa qabrigayga. dagaalku wuxuu ka dhacay dhulka maanta ka tirsan Turkiga. libaaxa geesiga wuxuu adeegsaday xeelad dagaal oo aad u xeel dheer. wuxuu iska dhigay inuu dib u gurayo ciidanka. ciidankii waxay galeen marin cidhiidhi oo u dhexeeya buuro. markii ay gudaha galeen, falaaraha Selduuqiyiinta ayaa cirka ka da'ay sidii roob. ciidankii wuu jaawareeray, safkoodii wuu burburay. ugu dambeyn boqorkoodii waa la qabtay. ciidan yar ayaa jebiyey mid ka tiro badan. guushan waxay furtay albaabkii Turkiga ee muslimiinta. waxay bedeshay jihada taariikhda bariga dhexe. waxay noqotay mid ka mid ah guulihii ugu waaweyn ee militari ee qarniyadii dhexe. mararka qaar taariikhdu tiro kuma dhisna, waxay ku dhisan tahay go'aan. haddii aad rumaysan tahay in hal qof uu bedeli karo taariikhda, la wadaag muuqaalka asxaabtaada. ku sali nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kana mid noqo safarkeeni taariikhda ah ee Abu Walad. taariikhdu ma aha sheeko lama dadaasho, waa hub lagu baraarugo. haddii aad rabto inaad ogaato sida hal nin oo u bedelay qarnigii 11-aad, haddii aad rabto inaad maqasho siraha dagaalo bedelay dunida, ku soo dhowo safarka taariikhda ee Abu Walad. halkan hal sheeko ayaa bedeli karta fikirkaada. taariikh nool, xaqiiqooyin qarsoon, baraarug. sanadku waa 1071. dunida islaamku way kala daadsan tahay. khilaafadii magacay leedahay, awoodna ma laha. dhanka kale, boqortooyadii waxay diyaarinaysaa mid ka mid ah ciidamadii ugu waaweynaa waqtigooda. boqorkooda wuxuu ku kalsoonaa in muslimiintu maanta jabayaan. wuxuu u arkayay dagaalka mid degdeg ah ku dhammaanaya, laakiin ma aysan ogeyn in nin dhalinyaro ah oo la oran jiray Alp Arslan uu sugayay. libaaxa geesiga ma haysan ciidan aad u tiro badan, qiyaastii 20,000 askari, laakiin wuxuu haystay 2 hub: iimaan, xeelad dagaal. markuu maqlay in boqorkii ku soo wajahan yahay kumanaan askari, wuxuu ciidankiisii ku yidhi, qofka raba inuu baxo ha baxo. maanta dagaal ma aha mid dhul lagu doonayo, waa mid sharaf lagu difaacayo. maalinkii jimcaha ayuu baryay Ilaahay, wuxuu xirnaa kafan cad. wuxuu yidhi, haddii aan jabno ma jiro meel aan u cararno, goobtani waa qabrigayga. dagaalku wuxuu ka dhacay Battle of Manzikert. libaaxa geesiga wuxuu adeegsaday xeelad loo yaqaan dib u gurasho been ah. wuxuu iska dhigay inuu cararayo. ciidankii waxay galeen marin cidhiidhi ah oo u dhexeeya buuro. markii ay galeen, Selduuqiyiinta waxay ku hareereeyeen falaaro roob u eg. safkoodii wuu kala jabay, isgaarsiintii way go'day. argagax ayaa dhacay. markii qoraxdu dhacaysay, ciidankii waa kala farxadeen. boqorkoodii Romanos 4. waa la qabtay isagoo dhaawac ah. taariikhyahanadu waxay sheegaan in markii la keenay hortiisa libaaxii geesiga ahaa, saldanku uusan dilin. wuxuu ku yidhi, haddii aniga la qaban lahaa maxaad samayn lahayd? boqorkii wuxuu ku jawaabay, waxaa laga yaabaa inaan ku dili lahaa. libaaxii geesiga ah wuxuu yidhi, anigu waan ku casinayaa. taasi waxay ahayd awood dab ah. guushan waxay furtay albaabkii. waxay noqotay bilowgii dhulkii Turkiga ee muslim noqdo. waxay ahayd guul saameynteedu socotay qarniyo. mararka qaar taariikhda ma bedelaan boqortooyooyin, waxay bedelaan hal nin oo go'aan qaata. maanta markaan aragno daciifnimo, waxaan xasuusan karnaa 1071 miilaadi. markaan aragno tiro badan, waxaan xasuusan karnaa 20,000. sababtoo ah taariikhdu waxayna baraysaa tirada ma aha guusha. iimaanka, xeeladda iyo geesinimada ayaa. haddii aad daawashada dhammaysay, ku sali nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kana mid noqo safarka taariikhda ee Abu Walad.
daawada muuqaalkan intaas ayuu ku egyahay fadlan subscribe noo saar siina gaarsi walaalaha Soomaaliyeed